Maxamed Nuur Wantem oo ahaa gudoomiyihii degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baaya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii gudoominimo ee degmada Buur-Hakaba. Waa kan Maxamed Nuur oo ka hadlaya is-casilaadiisa iyo sababta ku kaliftay inuu xilligan is-casilo. Aan oo ahaa gudoomiyihii degmada Buur-Hakaba ma go'aansaday taariikhda geega oo atkow بالشنات لما كنتم إسقالك إني أنا أزل هلك أنا هاي دولة ديجان كونفور قلبات سوماليا هلك سو هاي قدومي هدمود Buur-Hakaba ما يقول عن صدق جيج إني هلك سي أنا أزل التاريخ نمبر كو بالشنات لما كنتم إسقالك أنا قبل ميركي كفيو مسكح هذا إذا إنجرنا إذا قصبت أم أدادس إسارتي إني أنا هلك إسكا أزل يا ما يقول عن سداي شخصي أهانته إني أنا هلك دقمدن هاي جيجا لك بلا وأنا إسكا أزل ما يبان كباجة أولاً ما حد نجاش أبكي سدا شرفت له وناقل له يعني الشقيان أنت أنا روجي دقمدة رنتي محل ما مقولة تاريخ وايا شعبك كنول دقانة ده شرف له هاي رواية وأنا إلى الشقي أنا الشقي تيجي كلام ما يبقى أصلا أنت أنا روجي هدي أجرت qof shacab oo la dhibaateeyay oo waxyaalahan jeysidi may ba ku codsada inay yoonay afiyaan ramadaan la galahay ramadaanka saawadiis intii aan raaliga ahayn oo degmadaas ka dhibaatay may ba ku codsada inay iska ka afiyaan runtii may ba sheenay waxyaalo fara badan sheenay inay hilka iska azal may ba kamid runtii unu dadanyare wala bargahayni deegaankii horumar yalla fadaani أنا أقدر أدرك كشقي أو أكسنتين ميديا هي أكسنتين دروف أدرك كشقي إذا إنجرنا جي إذا قال سياسي إنجرنا دقالنا الإنسيانة إذا فنقرياسنا إنجرنا دروف أدرك كشقي يا ما يبجرته حالة أدرك أدرك مده لواتي أفرسالك بربرياو أما قبائلات كدقا وقابكنا نتكحرشة نفدي يدد كشقي هاي حنا قدن لنيجي سياسيين تي حير فدرال حير قبل حنا قدن وفرقلين oo aadin hayna degmada ka hay oo shacabkii la fadaw in la isku burburi dhibaato waxa ka dareerta degmadii 24 saac dulmi ku socda dila ku socda hanaga toy dhan ciidan hanaga toy dhan kala may waaye shacabkii oo dhibaysan oo dhibaatadan ka sii darahay may ba go'aansaday ilaa walxun aragaas inay may waaye iska ka baranto roon walxun ka aragahay degmadii inay ilaahayna raalama ka walxun aragaas inay adka ka haajirta ama inay walad ku qabata walaayo walaana geedku ku qabado koraan awoodeen hayna dadkii deegaankii oo meeli degmadii ku hormariyay fadaan oo go'aansadeen inay burburiyaan taas la ajla shay qasabtay inay helkana degmadan hayna iska ka azal maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wali wax jawaab ka bixinin is-casilaadan gudoomiyihii degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baaya. Shukri Ismaaciil Axmed, RTN TV, Baydhabo.